بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أنا عبد الكريم حسين فارح لو يقان AK إذن كلا سو هادليا gobolka Minnesota ee waqooyiga America waxaa sharaf iyo bogaadin iyo mahadin banoo ah maanta oo maalin Sabti ah bisha September ay tahay 2018 in aan halkan la joogno Dr. Mohamed Salaad Ali Baryooley oo ah musharax qaali ah oo u taagan xilka qabashada dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya isagoo maanta halkan nagu soo booqday waraysi dheer ka bacdi iyo xogsiin ayaan waxa aan door bidnay inaan weydiino laba su'aalood oo aan u aragnay inay aad iyo aad muhiim ugu yihiin bulshooyinka reer Puntland ama Soomaaliyeed guud ahaanba. Dr. Mohamed soo dhawow marka ugu horeysa sharaf iyo maamuus iyo qadarin iyo qiimeyn marka oo soo dhaweynayna gobolka Minnesota oo soo dhaweynayna Dr. Mohamed. وبحثنتها ولا العبد الكريم وسلامية لما نهار بنتلاند وحان إذن كل سلامية سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن دكتور محمد صلاة علي بريولي مشرح سؤال إذا كواد هدي أن قد قاله وحا أي نقنيسا ما دام أي جيران ضد بدن وكلا ترتمية كمدن دكتور محمد أهان محاد كقد وانتهى مشرحين تفرها بدن aad wada tartamaysaan kuwaasoo ku hawlan isu taagista xilka dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم. وسؤال أدو في عن جوابت السؤال شاس وحان كقد وانا قضب فربضان قضب كقوات أنا قد اخترع حرفة ديدو إيتاي أقون سبب عذر كان كهيا وبعدين عافماتك نغانو diagnosis anigoo ka xulanaya cudurkaas cudurro fara badan oo u dhow isticmaalaya cilmiga la soo baray haddii loo baahdana la sii kaashanaya shaybaar iyo qalab caafimaad taas oo bahdana caafimaadka aan idhaahno differential diagnosis anigoo weliba aqoonsanaya wixii sababay cudurkaas oo bahdana caafimaadka idhaahno pathophysiology iyo pathogenesis kadibna u helaya daawadii cudurkaas lagu dabiibi lahaa. walaalayaal waddankeena waxaa ku habsaday cudurro fara badan ay ka mid yihiin amni darro, cadaalad xumo, saboolnimo, dhaqaale xumo, jahli, caafimaad darro, tacliim xumo, wadaninimo xumo, musuqmaasuq baahsan, qof jeclaysi, qaabilaysi iyo alla ka cabsi la'aan. intaasoo dhan waxay u baahan yihiin dabiib daaweeya ilaahayna uu la garab galo. qodobka labaad anigoo haddeer nin weyn ah soona shaqaystay ilaahayna noogu celcelaya aniga iyo reerkayga maqaam iyo horumar. marxaladda aan ku sugnahay maantana ay tahay ilaahay ka cabsi, ilaahay ku dhawow, alla ka cabsi iyo inaan ku taagnaado mar walba tubta toosan anigoo goor kasta ku ducaysta ilaahow khaatimada hayga xumayn. marka walaalayaal marra uma jeedo, uma socdo, diyaarna uma ihi inaan xoolaha aan xalaasha ku soo shaqaystay inaan iska xaaraameeyo. qodobka saddexaad anigii marwadayda oo mar dhow baanka xajka ka soo laabanay una soo ducaynay dalkeenna, dadkeenna iyo ummadda islaamka oo dhan. annaga waxaan ku soo ducaysanay ilaahay inuu nooga dhigo xajkeennaas xaj mabruur oo ilaahay naga cafiyo wixii dembi ah aan hore u soo galnay nooguna soo qaado maalintii hooyadeena dhashay kama qaala rasuulullah sala allahu calayhi wasalam man xaja hada albayt falam yarfud walam yafsuq rajaca kamaa waladathu ummu. marka walaalayaal waxaan idinla socodsiinayaa inaan marra diyaar u ahayn inaan waddanka dembi ka galo xoolaha ummaddana dhaqo. qodobka afaraad aniga oo aan siyaasi ahayn marka aad dhegaysataan ama akhrisataan khudbadaydii ugu horreysay waxaa idinka baxaya inaan ahay nin daraasad dheer ku soo sameeyey dhulkeennii waddankeennii kana warqaba wadciga jira
kagana hadlay khudbaddaas dhibka jira iyo sida wax looga qaban karo reer Puntland oo dhan waxaan idinka codsanayaa inaad isbarbar dhigtaan isuna eegtaan khudbaddii iigu horeysay iyo kuwa musharaxiinta kale oo dhan qodobka shanaad waxaan ahay musharaxa keliya oo qoraal ahaan idinku soo gudbiyey wuxuu yahay mishankayga howlgalkayga iyo vishankayga aragtidayda waxaan niga codsanayaa inaad ka akhrisataan website-kayga wuxuu yahay howlgalkayga iyo aragtidayda waxaan ku soo gunaanoodayaa walaalayaal anigoo idinka codsanaya inaad dib ugu laabataan taariikhda adduunka idinkoo eegaya horumarka ay gaarsiiyeen dhakhaatiirta xilalka u soo qabatay waddamadooda oo dhan iyagoo ku wada najaxay aan ka ahayn keliya taliyaha xaafid al-asad oo Syria oo xukunka isagana ka dhaxlay aabbihiis oo kale taliya ah aad baad u mahadsan tahay musharax mudane Dr. Maxamed Salaad Cali Qoryooley su'aashaada aad nooga jawaabtay sida waafiga ah aad ugu soo bandhigtay bulshaweynta reer Puntland oo hiigsanaysa han iyo himilo su'aashaasna aan filayo inay jawaabtoodii ay ka haqabeeleen su'aal labaad ayaa la isweydiiyaa in fara badan su'aashaas oo ah mudane musharax maadaama aad tahay qofka keliya ee maanta ugu firfircoon dadka u taagan doorashada dowlad goboleedka shacabka reer Puntland ma leedahay meel shacabka reer Puntland ay kala soo xiriiri karaan ama kala socon karaan qaab dahabihimeedka ama qaab socodka doorashadaada iyo qaabka aad uga howlgelayso walaal waa leeyahay kasako waxa hadda la wada isticmaalayo social media waxaan ahay musharaxa kaliya oo haddeer leh website ay ka daalacan karaan akhbaartayda iguna soo gudbin karaan aragtidiina iyo su'aalaha aad qabtaan website-kayga waxaa la yidhaahdaa http://drqoryooley.com waana nii soo qori doonaa haddii ilaah yidhaahdo waad ka daalacan kartaan wax kasta su'aalahana ay igu soo gudbin karaan waa mahadsantahay dictoorka aniga hal masalaan ku raacay dalkii waa yaaban yahay shacbigu waa daalan yahay colaado ku daaha iyo duruuf adag bay mareen dictooro dabiibe iyo daawiye dhakhtar bay rabaan horta masaladan ayaan ku raacay qofka Soomaaliya tagaana waa arkayaa meesha eelku ka jiro dabaqadaha Soomaaliya ka samaysan mayna waad ogtihiin dictoorku hadda hadduu ku guuleysto 2 sano iyo bar dadku daaweynaya waa inuu kuntuneero daawooyina Mareykanka dalbadaa 2 sano iyo barka dambana horumarinta iyo education-ka iyo wuxuu ka shaqeynayaa ma aragtay shacbiga sidii la isugu dabaridi lahaa nin kasta oo doorasho doonaya wuxuu marti u noqdaa waa shacabka haddaan shacabka la kasban waxa weeye waxa gaagaya ma jiraan beentii waxarihii baa la yiri beentii waa barteen marka shacabkii beentii waa bartay dictoorku nin baahan maaha oo xoolo ka soo guri maayo Puntland dhibaata nimay ku taxalluqdo ma aha baagamuudana ma aha rag waxa jira inta Yurub iyo Ameerika baagamuudo ku noqdeen oo suud noo xirtaan haday doonaan ay toobal caaraysteen bay waxay leeyihiin wallaahi aniga waa sharaxana maxaa wadankii ka haysay horta meesha ka timid maxaa ku lahayd credit-kee ku haysatay dictoorku credit buu haystaa waa nin dhaqaale leh shaqaysta 35 sano iyo oda shaqaynayay oo professional weeye waa education waa dictoor وانا experience او وقت دير بو دلكي dadka u shaqeeyay